dalka afraad waa maxay? waa dalka Ingiriiska. waa taqaanaan muddada joogitaanka ee dalka Ingiriisku waa 2 sano, iyadoo 3 sano ay tahay dadka haysta shahaadada PhD-da. fursadaha ka banaan maxay tahay dalka Ingiriiska ee qofka ardayga ahi uu ku joogi karo? waxaan ku celcelinayaa ereyga arday, waana waxa aan rabno inaan fahansiino qofka rabo fursadda waxbarasho ee dalkaas ka helay fursadaha dahabiga ah ee uu heli karo. waxaa suurtagal u ah ardayga dalkaas wax ku barta inay helaan fiisaha u gaarka ah ee dadka jaamacadaha dhameeya, taasoo fursad kuu siinaysa si joogitaanka dalka inaad ka shaqaysato marka waxbarashadaadu ay ku dhammaato kadib. hase yeeshee shardiga laga rabo ayaa wuxuu yahay codsiga fiisahaas aad dalka ku sii joogayso inaad codsato ka hor inta uusan kaa dhicin fiisaha ardaynimo. waxaa kaloo lagu ogol yahay sifada sharci aad hesho inaad qoyskiinana keensato. waxaa kaloo lagu ogol yahay dalka Ingiriiska inaad fiisaha u bedelan karto. waa fiisahaagii fiisa waqti dheer kuu sii jiri kara, kaasoo ah fiisaha xirfadeed ama skilled worker visa waxa loo yaqaano. taasi waxay meesha walaal ku muujinaysaa in dalka Ingiriiska dhowr fursad aad ka heli kartid. kow, sifada sharciyeedda dalka aad ku joogtid oo ay ardaynimo inaad horta qoyskiina keeni karto. midda labaadna in fiisahaagii ku meel gaarka ahaa ee temporary-ga ahaa inaad u bedelan karto fiisaha loo maro barnaamijka la yiraahdo skilled worker visa inaad ku bedelan kartid, kaasoo kuu sahlaya inaad waqtigii aad joogi lahayd waqti ka dheer aad joogtid. taasi waa fursadaha aad dalka ku joogi kartid. fursadaha shaqo ee dalka Ingiriiska ka banaan maxay yihiin marka? fursadaha ugu badan ee dalka Ingiriiska ee shaqooyin ee laga helayaa waxay tahay walaalayaal guud ahaan waa dhinaca caafimaadka. midda labaad waxay tahay xirfadaha la xiriira kalkaalisanimada. midda saddexaadna waxay tahay adeegyada lacagaha, forex ha ahaato, bitcoin ha ahaato, waxyaalihii kale garanaysaan ha ahaato. haddii aad xirfadahaas taqaanid, iyaduna waa maxay? waa xirfadaha sida fudud aad uga shaqada ugu heli karto. halkaana waxaan oga baxayaa dalka Ingiriiska. dalka shanaad ee 10 dowladood ka mid ah waa dalka Finland. dalka Finland muddada joogitaankeedu waa 2 sano. haddaba fursadaha ku yaala dalka Finland waxaa kow ka ah wuxuu dalkani kuu siinayaa ama u siiya ardayda dawliga ah ee jaamacadaheeda ka baxa ama dhammeeya ogolaanshiyaha joogitaanka si ay shaqo u raadsadaan ama ay mashaariic u bilaabaan. taasi maxay ku iftiiminaysaa? waxay ku iftiiminaysaa haddii aad shaqaysan karto, fursaddii aad dalkaas uga shaqaysan lahayd waa bannaanka. midda labaad waxay tahay haddii qof hal abuur leh aad tahay oo fikrad shaqaynaysa leh aad tahay, mashaariic ayaa dalka ka bilaabi karta adoo helaya shirkadihii ama hay-adihii ku maalgelin lahaa. haddaba fursadahaasi waxaa shardi u ah kow, inaad dalkaas jaamacad ku baratay. waa inaad dalkaas jaamacad dalkaas ku taala aad wax ku baratay aadna dhammaysay. haddaba shardiga ardaygaas looga baahan yahay waa maxay ee dalka wax ku bartay? in qofka codsigaas soo gudbisanaya inuu dhameeyay heerkii jaamacadeed ama baaritaan aqooneed. haddii labadaas aad dhammaysid oo lagaa hubsado, waad helaysaa shaqadii. sidoo kale fursadaha dalka Finland ka banaan ayaa waxay tahay waa kuwa horta kala siman dalalkii aan horey usoo xusnay. hase yeeshee arrinka dalkan Finland gaarka u ah ayaa wuxuu yahay in ay taageerto mashaariicda kobcaysa iyo damaanad qaadka nidaamka bulsho ee loo wada dhan yahay. bimacnaa dalkaada haddii aad joogtid, haddiiba aad hal abuur leedahay, haddiiba qof shaqaysan kara aad tahay, waxaa weeye wax isir sooc ah ama nacayb ah ama dal hebel baad u dhalato lagu soocayo ma jirto. halkaana waxaan uga gudbayaa dalka shanaad. dalka lixaad wuxuu yahay waa dalka Ireland. muddada dalka Ireland joogitaankeeda ahi waa 2 sano. fursadaha marka aad dalka ku joogi karto waxay tahay walaalayaal, waxay dalkani Ireland ay siinaysaa ardayda jaamacadaheeda ka baxa fiisa dalka lagu sii joogi karo, iyadoo u sii maraysa barnaamijka la magac baxay Level 4 Graduate Program ama waxa la yiraahdo al-khaarijina min al-mustawa ar-rabi', kaasoo ardayga u suurtagelinaya in ardayga dawliga ah ama caalamka kale ka yimid in uu sii joogo dalkaas muddo 2 sano ah kadib marka ay dhameeyaan waxbarashadii dalkaas ay ku baranayeen ama jaamacadihii dalkaas ay dhiganayeen. sidoo kale waxay leeyihiin ardayda dalkaas wax ku dhameeya xuquuq ah inay helaan xuquuq dhammaystiran iyagoo ka faa'iideysanaya difaaca sharciyadeed iyo sinaanta mushaharka.
dalkan Ireland xaq kuu siinaya in dalkaas aad joogtid oo haddii waxa dulmi ah lagu geysto dalkii baa ku difaacaya. mid labaadna waa maxay, mushaharkaaga lagu siin doona haddii dalkaas shaqo aad ka heshid ma noqon doono mid la dhaho dalal kale uu ka yimid ama Afrika uu ka yimid ama Soomaaliya uu ka yimid mushahar hoose hala siiyo. waa maxay, shaqadaas magaceeda ayaa waxaa lagu siinayaa shaqooyinka noocaas ah mushaharka qofku xaq u leeyahay in lagu siiyo. marka ama luqadii ha kugu adkaato oo ingiriiska daciif ha ahaado ama dhaqanka dalkaas yaada aqoonin ama aad noqotid qof isla markaas jaamacadii dhameeyay, hadiiba aad shaqo hesho mushaharkaaga ma noqon doono mid lagu dilmiyo. halkaana waxaan uga baxayaa dalka lixaad ee ka mid ah 10 dowladood ee ardada wax ku barata ay xaq u yeelanayaan in dalka ay sii joogaan ama ay ka shaqaystaan. dalka toddobaad wuxuu yahay 10 dowladood ka mid ah waa dalka Jarmalka. muddada joogitaanka ee dalka Jarmalku waa 18 bilood. fursadaha haddaba aad ku joogi kartid waxay tahay walaalayaal, waxaa suurtagal ku ah ardayga caalamka kale ka yimid ee wax ku barta dalka Jarmalka inay u gudbistaan codsiga u ogolaanaya ku sii nagaanshiyaha dalkaas iyagoo shaqo doon ah. bimacnaa marka aad waxbarashada ku dhamaysato dalka Jarmalka waxaad gudbisanaysaa codsiga ah inaad dalkaas sii joogto adigoo shaqaynaya. hase yeeshee shardiga laga rabo ayaa wuxuu yahay in shardiga lagu xirayo uu yahay sugnaanta dhamaystirka waxbarasho iyo caymiska caafimaad. bimacnaa waxaad sugaysaa in dalkaas aad wax ku baratay isla markaana aad haysato caymiska caafimaadka. fursadaha shaqo ee dalka Jarmalka ka banaan ayaa waxay yihiin waa kuwa horta heerkeedu uu aad u sareeyo, iyagoo inta badan dadka wax ku bartay dalkan oo dalka Jarmalka lagu doorto dalalka ay ka soo jeedaan iyo qiimaha ay ku fadhido xirfadda uu qofku leeyahay. halkan waxaad moodaa dalalkii hore ee aan soo sheegnay 6 ahaa dalka Jarmalku inuu ka duwan yahay. waxaa la eegayaa dalka aad ka soo jeedid, sidoo kalena waxaa la eegayaa xirfadda qofku uu leeyahay. mid labaad si aan laga gudbi karin ayaa waxay tahay xirfadda aad taqaano waxa ay ku goyn karto, marka waa inaad maanka ku sii haysaa. balse arrinka ku gaarka ah dalka Jarmalka ayaa wuxuu yahay in waxbarashadu ay tahay mid u eg inay bilaash tahay. bimacnaa sida qofka loogu sahlayo loogu fududeynayo sida fudud uu ugu helayo ayaa waxay u eg tahay mid lacag la'aan ah, taasoo ay walaalayaal kulansanayso fududeyn aad u weyn oo ah qofka joogitaankiisa dalka ee ku meel gaarka ahaa inuu u bedesho mid muddo dheer sii jira. bimacnaa maadaama muddo xadidan waxbarashadaadu ay ahayd tusaale ahaan sanad oo kale 2 sano oo kale 8 bilood oo kale iyo wixii la mid ahaa, ayaa inta aysan ka dhicin ayaa waxaad helaysaa fursad aad muddadii ku sii kororsato. halkaana waxaan uga baxaynaa dalka Jarmalka.